هذا إله وإسكاله وعن جارهاي مركا وهرية إن نهض عليو قدك قوان قابضة دولة ويسكسوا أبابلي حسكي تبالدقي حسكي صدحي الطبلات إدارة شديد دولة بولان ما أنت وحي كدعي مقالة قروة iyo magaalooyinka kaleba iyo xafladda caawa oo ay madax u tahay Marwa Caashe Geelle calankan ku gaarto irka midabkaaga cawaala u doortay markii lagu ciile colaad kugu raagtay carradaya dintii calankan ku gaarto midabkaaga cawaala u doortay markii lagu ciile colaad kugu raagtay inaadan ciloonban ku sii cadkayge cawaalaha ooyin cilomban ku sii cadkayge cawaalaha ooyin calankii Puntlandba ku yaal cirifkaage calankii Puntlandba ku yaal cirifkaage ka muuqda cariyo nabadweye cawaale hawaayi cadaanka ka muuqda
عرضي دينتي عرنكان كودرتو عقار كبر واغو ايقاك تدول كيسي عدي ساوت قنبا أدومك كوعاني عرضي دينتي عرنكان كودرتو عقار كبر واغو ايقاك تدول كيسي عدي ساوت قنبا أدومك كوعاني كيسو عراد سكية عدكودة دقيسو كعاقدت كيسو عراد سكية عدكودة دقيسو عميلة ونكسن عدكينا كمالو عدكينا كمالو ربو عبسي دابا إلو فدياري صومالي عيني ربو عبسي دابا إلو فدياري صومالي عيني وحاجر عيدا إدي سايلاشي عرادي قيسي الرولي ويلير خويك عروضة تقريل بحوايي وحاجر عيدا إدي سايلاشا عرادي قيسي الرولي ويلير هوينك عروضة تقعيل بحواي
sabada dalxiisku baahayay waldaya dalka baaxadale maleeg badaha isku xidha haddana
puntland iyo dadkeeda iyo dawladdeedu mudanayaal waynu salaamayaa salaan kadib caawa waxaynu u fadhinaa xafladii 13aad sanad guuradii 13aad ee dhismihii puntland ilaah baa mahadle alxamdulilah rabbilcaalamiin habeenba siday ahayd habeenkii ila quruxda badnayd weeye aad iyo aad puntland waad ogeydeen xilligaynu dhisnay dhismaheedii waxaa ka horreeyey hindisaheeda waxaa ka horreeyey dhib aynu dareennay dhibkii wuxuu keenay in la hindiso wuxuu keenay in la dhiso intii ka dambaysayna waynu wadnay oo waa hoggaaminayna maalinba meel bay soo joogtay maalintay u quruxda badnayd oo u ashcaaraha badnayd oo u karaamada badnayd oo u sharafta badnayd 13 guuradeedii caawa habeenay ka qurux badan tahay oo halkaan isugu nimid miyaa garan kartaa bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ku hadlaya qurbo joogta khaas ahaan dumarka Minneapolis ayaa waxaan ugu soo talagalnay Somali Women Business Action oo aan u sido 12 gabdhood aan hadda magacooda ku soo koobi karin inaan guddoonsiyo madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamed Farole waxba wareejinayna mahadda ilaah baa iska leh waxaan jeclahay marka u horreeya inaan mahad u celiyo guddiga qabanqaabada dawladda oo isku soo abaabulay xuskii dabaaldeggii xuskii 13aad ee dhalashadii dowladda puntland maanta wixii ka dhacay magaalada Garowe iyo magaalooyinka kaleba iyo xafladda caawa oo ay madax u tahay Marwo Caashe Geelle waxaan idin sheegayaa sidaan marar badan oo hore u sheegay ismaha puntland uma dhalan puntland oo keliya dadka reer puntland oo keliya uma dhalan wuxuu u dhashay dadka Soomaaliyeed oo dhan maxaa yeelay markii ay burburtay xukuumaddii dhexe wadankiina ay hantidiisii iyo camiraanshihiisa hal meela la isugu geeyey halkii dambiil ahayd oo wixii oo dhan isugu jireen hal mar ay dhulka ku dhacday wada ukuntii wada dhac burburtay halkan dadkii yimi waxa ay aasaaseen oo unkeen oo muddadii loo soo qaxay oo hataa dhismaha ka horreysay wax badan oo horumar la sameeyey iyo nabadgelyo lana soo degay lana yimi waxaan aad iyo aad dadka Soomaaliyeed oo dhan u sheegayaa inay halkan u tahay hoygiini koowaad oo aad wada joogtaan sidii horeba loo sheegay oo aad isugu imaan kartaan nin walba waa gurigiisii nin walba waa deegaankiisii nin walba muwaadin buu ku yahay ninna laga sheegan maayo laakiin waxaa loo baahan yahay in la iska ilaaliyo cadowga kusoo dhexdoomanaya cid walba oo puntland degan waxaan halkaan uga soo jeedinayaa inay u feeyignaato nabadgelyada yaan lagu dhex dhuuman caadifadaha laysku qariyo ha laga waantoomo ha laga kormaro waxaan u soo jeedinayaa inay sheegaan ciddii ay khatar u arkaan hadduu wiilkaaga yahay iyo hadduu walaalkaaga yahay iyo hadduu xaaskaaga yahay iyo hadduu saygaaga yahay maxaa yeelay laysma aqoodo xumaanta qofka wada ninkii moodaya inuu ku burburin karaayo maamulka puntland iyo dadkiisa iyo horumarkiisa bomba xun oo wadada dhinac ka dhigo oo laba qof ama ay ku dhimato ama cid kale wax ku yeelo isaga un baa naar ku galaaya annaga waxba na yeeli maayo loo joojin maayo waa soconaysaa waa keenayaa nabadgelyada waa laga shaqaynayaa waana la kaashanayaa dad iyo xukuumadda waxaan idiin sheegayaa muddadii 2 sano iyo 7 bilood ahayd oo maamulkan aan anagu madaxda ka ahay jiray ragga aniga ila shaqeeya oo dadaal weyn sameeyey muddadaas
waad ogtihiin habaanoo cid ka sheegayn meesha wax ka bilowna waad garanaysaa 6 bilood iyo dheeraad bay nagu qaadatay inaanu isku dubaridkii meeshii wax laga bilaabi lahaa aan isku dubaridno marka waxaan jiraa runtii markii la eego intaa markii ka bacdi 2 sano iyo bil qiyaastii ayaanu jiraa intaan wax qabad bilownay intaan isku dubaridnay miisaaniyad shaqayn karta intaan isku dubaridnay ciidamo lagu tashan karo ururintood intaan isku dubaridnay xafiisyadii in la soo nooleeyo intaan isku dubaridnay in maamul shaqayn kara balcagaha loo taago dabadeedna hadba intii la hormarin karo la hormariyo way jirtaa in wax badni dhiman yihiin wixii halkaa laga sheegay caawa waxqabadku kuma wada dhamma laakiin in badan buu ka yahay waxaa muuqda waxaada badanaaba wax dhimiddaa muuqata haddii aad shaar cad leedahay oo hal dhibica ku taallo shaarka intiisa kale nadiif tahay halka dhibicdaa baa la arkaa laakiin shaarka intiisa kale nadiifkaa dadku ma qiimeeyo ma arko ishu taasay ku dhacdaa halakan qoladii riwaayadda dhigaysay dhaliilihii ay qaybaha bulshada usoo kala jeediyeen annagu taayadii waa qaadanaynaa dadka waxay horseed u tahay midnimadii soomaaliya la soo celiyo innaguna aan qaybtayna kaga aadan ka qaadanno sidii halakan caawa laga soo wada jeediyey dadkii halakan riwaayadaha iyo heesaha iyo sugaanta ku dhigaayay iyo ciddii kaloo hadashay oo halkan ka hadashay intuba waxaan idiin sheegayaa inaan arrintaas iyo xuquuqda aadamaha oo iyadana aan daryeelayno shuruucdii aan u wada samaynay intaba demoqratisationka iyo xuquuqda aadamaha dhowristiisa iyo u magacaabidii dadkii hormuudka u noqon lahaa oo aan xuquuqda aadamaha gabdhaha aadamaha ku fiicane iyagaana maanta puntland hormuudkii ah iyagaa ciidamada ku xiga ama kaba horeeye aan doonayna inay gabar noqoto qofka xuquuqda bini aadamaha aan usoo jeedinay barlamaankuna baaskarayn doona haddii aan laydno waxyaalaha marka caqabadaha ku ah horumarkeena waxaa ka mid a dhibaatada iyo deganaanshaha laha inta ka jidha koonfur waa wadankii oo hal dad ah dhibaatadiisu isgaarayso intii halkaa dhibaato ka jidho halkeena waxbaa ka jiraya marka inaan taa ka shaqeyno nabadeenna waxaa weeye waajib ina saaran intay halkaa wax ka jidho horumarkeena caqabad bay ku tahay argagixisada iyo burcabadeedu waxay ku tahay caqabad qabaa'ilka islaynaya weligood way islayn jireen laakiin waxyaala yar waagii hore ulo iyo waxay haysteen iyo toore yar iyo waxbay isku dhifan jireen laakiin marakan bkm iyo technico iyo waxaasay isla dhacaya waxaan mar labaad u soo jeedinayaa abiil in dadkeena reer puntland way ku mashquulsan yihiin ganacsatada iyo culimmaduba qaaraanka ay ururinayaan in la dedejiyo oo la kordhiyo oo ina lagu gargaaro walaalaheena dhibaatadu haysto koonfureed ina lagu gargaaro kuwa wadaniga ah oo iyaguna puntland jooga intaba intaasaan rajaynayaa waana in la dedejiyaa hadii lahay idmo ajarna waa laga helayaa waana waajibaad ina saaran xag ilaah waxyaalaha innaga marka caqabad weli ina ku ah waxaa ka mid ah soomaaliya intii dawladuhu ka jireen ama ahaato tii 60kii oo ahayd rayidka ama tii maxamed siyaado ciidanka ahayd mashaariic badanoo horumareed baa laga qabtay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha laakiin nasiib darro dhinacan waxba lagama qaban wixii inagu tabarteennaha waa qaban waa tii halkaa laga muujinayo waxaynaan tabar u hayn baa jira waxaan tabartaanan u hayn adduunkaan la kaashanaynaa badamo badan baa naloo qaado annaguna wixii aan kordhin karo waa sii kordhinaynaa waxaana rajaynayaa inay soo bannaan baxaan oo aan ku guulaysano intaa xukuumaddaanu ay weli xafiiska joogto insha allahu tacaala saasaan rajaynaynaa dhibaatooyinka jira oo xagga caalamka jira waxaa weye dhaqaalo xumada iyo dhibaatooyinka kale oo haysta dawladaha kale caawina iyaga gudahooda iyo ammaan darrada guud oo adduunka ka jidha oo argagixisadu ay ku hayso iyo burcabadeedu taasuna waxay ku tahay caqabad dadka soo barakacay halakan barakac waaba laga gudbay bay la tahay haddii maanta ay ciidankii ka mid yihiin hadday ka mid yihiin dadkii maanta dabaaldegaayay haddii caawa halakan aad ku arkayseen gabayadooda iyo heesahooda haddaad arkayseen dee waxay la tahay waagii hore qofka xamar tagaba waxaa la oran jiray markuu meesha ka soo noqdo waxaa la oran jiray kan waa xamari wey afkala soo ku hadlayo yimaado halakan markay ka noqdaan qolada tan xaggii markoodii ku noqon kari mayaano
اللغة كلا لهجات كلا يكوها بالدونانو وعلى أورن دونا كوا وامبولاندر إنك عليه ماشان يدقي دونا آخر كجوج دونا ساسا يلا كم انتهى إن لنا ما يسترو دستور كي قرنكا أو أي كوكو غيران دونتو سيدا سومالي أي سراعي كرتو وحقيب سيدو سيدو نغون دونو أولا إيوه خيرات أنا يا ودلك أنا انتقلنا هاي خيرات دبيعي وبدن باكو جرا سيهرو مركي أنا قارو واسي ودينا خيرات كاس أنا صوصا ردال كانوا قلت له أنا يا سي ودينا ما أنت الدستور كاسو نماذو وصومالي وحقيب ستنا تويحي صومالي وحكو قيب ستنا وحكلا قيب سنين تاسان وذاك الدون وعن سي ودي دونا هدي لهاي دمو وعن ليلة هذا ضيعترك ريابليتيشن مع ضيعتر سوما ضيعترك وعي قلنت لقول ضيعتر ضدك المسكح دي إذا هي دقن كان اللي رجلنا إنه ضدك المسكح لك ضيعتر إياه وحافقنا اللو يغيروا لي هذا بوست كونفليكت ستريس سيندروم باكرة وعوي ضدك نشوف مسكحات باكلش صارنا والله واشين وواحد نوبح إنه بوفس تبرش باكلش قارنا قرن ما يصير وحول قايلنا يوسك قايلنا قارنا فرد كدرية جرا وحبوا معارضية واحد بوزيتيف كأرك مية واحد نيجاتيف كواهو مغنية كان والله درر الناس ملح الله ضيع ترو هدي لهاي الموت وحنا الله كاشلنا علماء الدين هي أدياننا هي الله كاشلنا أديان الدين